soo ilaaday waxaan soo gaaray da'da 12 sano markii aan soo gaaray waxaan arkay waxaan weligay maqlin oonan arkin oo qofna aysan ii sheegin waxaan filaynin inay aniga igu dhacayaan waxaan isku arkay ama waxaan noqday qof qaan gaartay oo waxa ii yimid dhiigii caadada oo dumarka ku dhici jiray ama gabdhaha ku dhici jiray kaasoo aan weligay iga sheekeynin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وإذن سلامي والله غالي أهمل بأجوكتين سودا وهذا ومركلي فيديو كلا عصب أصحابتي شرفت لو حنو وضع قصة ذي شلي أما قصة ذي شلي قيبتي ذي لبادي قبلود أو يري راي ومساكين هاي hooyadoodii aabood intay isfureen aabood naakal uu soo gursaday rafaad badan iyo dhibaato badan ay ku soo koreen gabadhii weyneed 12 sano markii ay gaartay nin lagu daray hadan ninkii uu ku sii inkiray uur markuu u yeelay qaybtii labaad ayaa noo wadaa soo dhawaaliga qaaliga afalna ay cusub tahay subscribe isaar fiidoogana like isaar qurux badan iyo nasi share galay hada ay awoodid aan ku salino nabigeena suuban alayhi afdalu salatu wasalaam allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo dhawaada walaaliga qaaliga shalay waxay noo mareysay odaygii inuu gabarta cunuga ku inkiray uurka uu ku inkiray uu yiri aan shaqo ku maliyid aabaheedna wuxuu dhahay gabadheedii ii fur warqadeedana ii keen cunugaana shaqo ku maliyid wax lagu soo weydiinana ma jirto muxuu ahay gurigeygan xaaraan uu ka yahay inaa lagu soo dhigtid hadda ka bacdi xaaraan uu ka yahay cunugan adiga shaqo ku maliyid gabadheeda warqadeeda oo ii keen oo kaliya ah وبيتي يحرم عليك gurigeygan inaa lagu soo dhigtid hadda ka bacdi xaaraan uu ka yahay isku dayin wax lagu soo raacanayna ma jirto sidii ayaa gabadha warqadeeda loogu keenay cunugiina aabihiis uu ku inkiray gabadhii sagaalkii bilood ayay dhameysatay laakiin intaysan dhameysanin maalin walba ilaahay bari jirtay waxay dhihi jirtay yaa rabbi unsur calayya yaa rabbi unsur calayya ilaahayo iga guulay ninkaas ilaahayo rabbi raxmaano ninkaas iga guulay oo muxuu ahay wax marqaati ah keen oo ninkaas ku marqaati furo cunug inuu asaga leeyahay gabadhii markay sagaalkii bilood dhameysatay waxay dhashay odaygii oo yar odaygii oo nuuna laga dhigay odaygii cunug laga dhigay ayay dhashay odaygii inta taagan ay dhashay qof walba oo gabadhii soo booqatay oo umusha ugu timid waa fajacday waxay dhahday subxaanallah odaygii inta taagan waaye bismillaahir rahmaanir rahiim wuxuu noqday cunugii odaygii wajigiisa inta taagan naag walba u timaad waa fajacday xaas yani teeda kale odayga gabadha cunuga ku inkiray aabaheedna way isxigaan eedada aabaha qabayna way isxigaan oo dadkan waa wada family iswada yaqaano marka dadka gabadhaha soo booqanayay oo qaraabada la ahay naag walba ninkeedii wargelisay waxay dhahday subxaanallah cunuga yar ay gabadha dhashay ninkii odayga ahay oo inta taagan oo biyo aan la marin waa odaygii inta taagan odayga marka akhbaartii u tagtay cunugii inuu asagu eg yahay cunugii asagii la yareeyay inuu yahay odayga marka wuxuu yiri maxaa sameeyaa aniga odayga wuxuu dhahay beyti yuxram calayka gurigeyga xaaraan uu ka yahay lugma soo gali kartid anigana cunugii waa ka tanaasulay waa saxiixay in aniga shaqo ku lahayn in aniga cunugaas dhalin hadda aniga gurigaas ku galaan soo odagaas ugu tagaa dadkii cunuga arkayna waxay marqaati fureen cunugan inuu asaga dhalay cunuga inuu asaga inta taagan inuu yahay inaan biyo la marin odagan biyo la marin inuu yahay dadkii dhan marqaati fureen dadkii marka waxay dhaheen odayaal raadso odagaas kuula tago oo odagaas kaala hadlo odaga gabadh dhalay kaala hadlo gabadha aabaheed dabcan bis odayga marka wuxuu raadsaday dad odayaal isku soo hormariyay odayga marka uu ogolaaday laakiin wuxuu dhahay hal shardi aan wataa gurigeyga cag ma soo gelinayo hadduu rabo cunuga banaanka ugu keenaa banaanka ku arkaa gabadheedana ma arkaayo cunuga asagaa dhalay asagaa shalay inkiray maanta hadduu rabo inuu arko cunugiisa aan uma diidanin laakiin gurigeyga cag ma soo gelinayo odayaashu iska soo hormariyay odayaashii gabadha aabaheed hadalku ka qaatay wuxuuna ogolaaday banaankaas inuu cunug ku tusiyo odayga markuu yimid kii cunuga dhalay oo inkiray cimaamadiisii wuxuu dhigay odaga gabadha dhalay gabadha aabaheed
labadiisa lugood hoostooda ayuu cimaamadiisi dhigay, lugahan uu ka qabsaday. wuxuu dhahay raali iga noqo, waa gafay, waa kugu xadgudbay, sharaftaada meel uga dhacay, waa ku ceebeeyey, raali noqo. wuxuu yiri iga istaag hoosteeda ka kac, raaligaaga ma aqaan, meesha ka kac. wuxuu yiri aniga hal shardi, hal shay bis aan kaa rabaa inaad sameysid. wuxuu yiri cunugaas magacaaga kusoo qor, inuu cunugaaga yahay soo cadeey, kusoo qor kaarkaaga dhalashada inuu cunugaaga yahay bis soo cadeey. wax ani aan kaa rabo oo kale ma jirto. caanaan lagu weydiinaynin, wax kale lagu weydiinaynin, korisaan lagu weydiinaynin, wejigaaga ma raba iga qari, laakiin hal shay sameey. waxaa sameysaa cunugan inaa adiga magacaaga ku qoratid oo kaliya ah i sameey. inuu cunuga adiga aa dhashay cadeyntiisa oo kaliya kaa raba, magacaaga kusoo qor, kaarka cunuga ii keen, mac salaam duurkaa gal, iga qari wejigaaga. marka horta oo dabcan jilbaha uu ka qabsaday, yani qofkan hadduu sharaf kasta iyo yani qof si kasta loo ixtiraama hadduu yahay oo si kasta u weyn, hadduu marba qof lugaha ka qabsado cimaamadiisan uu dhigo, waxay la mid tahay waxaa rabtid igu sameey, maanta gacantaadan ku jiraa, waxaa rabtid igu sameey kartaa, saasay u dhigantaa. dabcan wuxuu yiri iga horkac, warkaagana aniga ma rabo, wax kaloon kaa rabana ma jirto, waxaan ku raacanayna ma jirto, wax lagaa rabana ma jirto. gabadheydana ha isku dayin inaad tiraahid ii soo celi, lagama yaaba taas. cunugan xataa kuma siinaayey, laakiin halkaas shay soo cadeey, haddana iga tag. odaygii marka cunuga dhalay muxuu ahay uu kusoo qoray magaciisii inuu asaga dhalay, wuu qirtay, wuu cadeystay, kaarka familka kusoo qoray inuu ilmihiisa ka mid yahay. waa dhamaatay, meesha lagu kala tagay. gabadhii marka waa yartahay, dabcan weli waa yartahay, 12 sano lagu guursaday, 13 sano cunugay ku dhashay. iyadii walaasheed weli waa ilmo, waa caruur. gabadha marka tii weyneed aabaheeda waxay ka dalbatay, waxay dhahday aaba maqal, aniga eedaday dhibaan ku qabaa, waan kuu sheegi jiray, laakiin adiga ima aamineynin. intaan ka badan anuu ma adkeysan karo. aniga hadda xoogaa waa weynaaday, walaashii waa weynaatay, hooyaa noqday, cunugaan wataa, dhibaatadii hore aniga ma ku jiri karin, bisa iga tahay. waxaan rabaa guriga aniga iyo walaashay iyo cunugayga inaa qeyb noo goysid, oo ani iyo yani cunugayga iyo walaashay meeshaas aan ku asturnaano, oo eedadeen la noolaashaheeda aa naga dhex bixisid, gooni naga dhig. aabihii gabadhiisii hadalkeeda uu maqlay, gooni u bixiyey, guriga u kala jaray. dabcan gurigu qeyb yar ka siiyey asaga gabdhihiisii iyo cunugii yaraay oo gabadha weyn ee dhashay, qeybaa la siiyey. waa dhamaatay meeshaasoo yani guriga luu ka mid yahay. markuu tagan gabdhihiisu u tagaa, lasoo sheekaystaa, oo dhex fadhiistaa, oo ka warhayaa, markuu rabana gurigiisuu yimaadaa. waa dhamaatay sheekadii. cunugii yaray oo la dhalay waa soo weynaaday, sanadba sanad iskugu guraayay, oo waqtiga u socday. cunugii wuu weynaaday. cunugii markuu gaaray 6 sano iyo 7 sano, gabadhan marba waa weydiinay aabahay aniga aaway. gabadha aabaheed wuxuu u yaqaanaa inuu abkoogiis yahay, uma yaqaan inuu aabihiis yahay. maalintii dambe waxay dhahday aabaha wuxuu degan yahay meeshaas, dabcan kalama dheero, magacaasaa la dhahaa, guriga noocaas uu degan yahay, bax u tag. gabadhan weli waa yartaa, cunugeeda markuu 6 sano jiro, iyadana ay 13 sano ku dhashay, weli 19 jiro, weli waa yartaa. nin kale ma guursanin, walaasheedna aabihii nin kale kuma darin, maadaama gabadhii weyneed oo nin ku daray, ninkiina saan uu u xumeeyey. nin kaleenta kuma qasbin, nin kale uma keenin. gabadhii yareedna nin laguma darin, waa yartaa, iyada weliba 18 sano jirtaa. oo yaan lisdhehin cunuga markuu weynaanayo aabihiis raadsanayo, hooyada mala aroosin miyaa, gabadho kale mala aroosin miyaa, weli waa gabdho yaryar oo gurigii aabahood joogo. cunugii marka 6 sano iyo 7 sano markuu soo gaaray, hooyadiisna uu ku wareeriyey aabahay aaway. waxay dhahday aabaha meeshaasuu degan yahay, magacaasaa la dhahaa, bax u tag. dabcan kalama dheera dadka guryahooda, waa isku qabiil, isku famil oo hal meel wada dego. cunugii marka waxay dhahday marka hore bax, waxaa u tagtaa abkooga u tag, waxaa dhahdaa waxaan u socdaa aabahay aan u socdaa dheh, hore u bax. cunugii yaray siduu usii socday wuxuu u tagay abkoogiis. abkoogii markuu u tagay wuxuu dhahay waxaan u socdaa aabahay inaan maanta soo salaamo, aabahay aan rabaa inaan arko. odayga indhuhu taaga marka, iga aamus, ku noqo guriga, maxaa dhacay? hooyada isoo fasaxday abkoo, maxaa kugu dhacday? aabahay aan rabaa inaan soo arko.
hadal ha igu soo celin u dhahay ku noqo guriga ku soo celiyay gabadhi marka aabeed wuxuu dhahay ninkii ku xumeeyay ninkii intaasoo ceeb qoorta ku geliyay ninkii kaa dhigay inaad ilmo meel kale ka keentay ninkii kaa dhigay inaad qaraabatid see ugu ogolaa kartaa inuu cunugiisa soo booqdo yaa ku fasaxay see u sii kartaa cunuga adigaa soo korsatay anaa kula soo koriyey anaa caaniisa xafaadiisa bixinayay anaa intaan la soo ekeysiiyey maanta see ku keentay inaad tiraahid aabaha waa kaasahay bax booqo waxay dhaad aabistaji cunugan asagaa igu wareeriyay aabahay aaway marka koobaad marka labaadna aabuu leeyahay aaba macaano waxay tiri istaji adiga aniga ay dhashay gabadhan kala dhashay ilmahaas kale eeda dhashay cunugan adi afkoowa u tahay cunugani aniga waxay dhahday hooyaday ma arkin waxaa iigu dambeysay anoo yar hooyadii hadda see u taala ma aqaano hooyaday inay dhimatay inay nooshahay aniga ma ogey maalintii hooyadii aad furtay oo anagana aan noo diiday inaan raacno aan ugu wardambeysay waana yaryareen xataa wejigaas u yaala ma xasuusto anigana waxay tiri hooyaday iga maqan habeen kasto inaa iloosana ma umaleysaa hooyaday habeen booskeeda qof ii buuxi kara inuu jiro ma umaleysaa aniga waxay dhahdaa aaba xaqaa naga gashay aniga iyo walaashii xaqaa naga gashay hooyaday ma arkin intaas oo sano aniga marka qaladkii adiga aa gashay oo anaga aa naga gashay ma waxaa rabtaa inaa cunugayga ka galo anaa og qaladkaas dhibka uu leeyahay xanuunka uu leeyahay anaa soo maray anaa hooyla aan soo koray aniga iyo walaashaya rafaad lasoo kulanay aniga marka ma rabi wixii aniga aan soo arkay inuu cunugayga arko aniga qofka markuu labadiisa waalid mid kamid ka maqan yahay qofkaasoo kaliya ogaa karo qofku labada waalid mid kamid uu ka maqan yahay ogaa karo aniga ogaa karo aba adiga wax ma ogid waalidka markuu ka maqan yahay xanuunka uu leeyahay aniga og cunugan aabihiis wuxuu raba ha sameeyo qaladku raba ha galo aniga iga galay laakiin asaga aabihiis waay mana kala go-ayaan beri hadduu dhintan dhexalkiisu wax ku leeyahay beri hadduu weynaadana cunugan aabihiis xaqu ku yeelanaa aabaha xaq yeelanay meelna yacni meel uma kala go-aan ilmahaas odagaas kale uu dhalay waa walaalihiis ilmaha cunugan u dhali doona adeer iyo eeda u noqon doonaan dad kala haray maaha dad kala haraynin maa rabta adiga inaad kala jirtid marka waxay dhaad aaba macaano dhageyso inaad waalidka labadaada waalid mid kamid ah inaadan arkin xanuunka ay leedahay anigaa kusoo koray anigaa hooyaday iga xarimtay oo intaan la eg oo hooyo noqday oo welina aan hooyaday arkin anigaa isoo rafaaday si ani iyo walaashay dhibaato aan soo marsiisay maraba cunugeygii intii ani aan soo maray inuu maro aabihiis xor u yahay aabihiis wuxuu haleeyay anigu iga haleeyay odaygii intaas markuu maqlay timo intuu iska qabtay sidii qof waalin camal uu madaxa iska ruuxay oo hilli ku daray يعني هذا اللي وحي قبل أشيكت هذا الوين وسنسوجين إنه مقل دونه هذا القصص وين أو بيركي سلول دونه إنه مقلة مملينين وأنا هذا الحق وقرأ وصدي وفهم وحي تاي إنه قبل سن حق قال وقاذي وحوله رالي هذا قبل هيسي هذا يكو سيدي المير عمل ومضح كشومية قعمها كشومية وحأم ليس هذا إنه هو يتوفر أو كله laakiin gabdhaha waa weynaadeen hooyo la-aan soo koreen dhibaatana way soo mareen rafaad badanna way soo arkeen eedadana gabdhaha way soo gumaysateen gabdhihiisii soo xabsaday oo baalka soo gashtay oo labadooda madaxa ka dhunkaday oo raali geliyay oo wuxuu dhahay dambi weyn ay idinka galay mana dareemeenin dambiga intaas la eg in ay idinka galooyo hadirtaan adiga ay fahamsiisay cunugaagan wuxuu dhahay hadda aabiisa u tago ha soo noqdo mana loo diiday hadda ka bacdi cunugana markuu aabiis u tago uu soo arko uu soo noqdo istiyaariya adiga iyo walaashaan waxay u baahantiin aruursada waxaan idiin wadayaa hooyadiin meesha ay joogto gabdhihii waday wuxuu u geeyay hooyadood meesha ay deganeed ayagoon arkin sanado badan hooyadii u geeyay hooyadooda u tageen hooyadoodii ku kor ooyeen hooyadooda isku duubeen hooyadii iyo gabdhahaba kulligoodba oohina isku dareen xataa odayga ku dar markuu u geeyay hooyadii gabdhihii odaygina hooyadii gabdhaha dhashay uu raali geliyay wuxuu dhahay waa ku dulmiyey xaqaan gaa galay sanado badanaa gabdhahaada kaala maqnaay raali iga noqo
gabdhahaadina waa kuwaana. Gabdhihii iyo horta hooyadood saasay ku kulmeen oo isku heleen mar labaad. waxaana sabab u noqday inay arkaan hooyadood cunugan yar. haddii xataa gabadhan dhibkaas aysan soo mari lahayn oo odagaas aan lagu dari lahayn oo halaasoo ceeb iyo rafaad aysan soo mari lahayn, aabaheed hooyadeed ma arki lahayn. marka waxaa laga yaabaa xataa cunugan lagu inkiray iyo dhibkan iyo rafaadkan gabadhan ay soo martay inay ahayd xikmo ilaahay uu watay uu mashaakilkan lagu xalinayay hooyadan iyo gabdhahan si ay markale dib iskugu arkaan, odaygan u garawsado dambiga uu galayo uuna u dareemo gabdhihiisa xaq uu ka galay. marka sidii gabdhihii hooyadood marka u midoobeen, odaygana uu dareemay dambiga uu galay intuu la eg yahay, gabadhiisana taabsiisay, maana weligiis ma fahmi lahayn. marka asxaabtii sharafta leh, qisadeena shala qaybteedii ilaa intaasay ku eg tahay, farxad ay ku dhamaatay maasha Allah. gabadha yarna waxay ku soo baxday gabar yar oo caaqilad ah oo wax fahamsan, aabaheedna taabsiisay dulmiga uu geystay iyo dhibka ay soo mareen, maalintii loo baahnaa iyo waqtigii loo baahnayna dareensiisay, qalbigiisana taabsiisay. inta ay soo mareen waxay tustay aabaheed waqtigii munaasibka ku ahayd inuu dareemo, wuuna dareemay. marka asxaabtii sharafta leh, qisadeena qaybteedii labaad baa soo duubay, waa dadaalay, naaga iska soo dhigay. marka insha Allah asxaabtan waxay soo dalbadeen qisooyinka inaan joogto ka soo dhigo, maxaa yeelay waxaa soo dhow bishii barakeysneed ee Ramadaan. insha Allah inta dambigooda la dhaafo, soonkooda iyo salaadooda la aqbalan Ilaahay ha nagu daro. maasha Allah Ramadaan soo carfaayo, ani waa Ramadaankii labaad oo Soomaali hadda aan joogo, laakiin farxadda Ramadaanka soo dhow waxaa iga dan kuleel xalka sir oo yani kuleelkan hadda bilowdaya maarsa bilowgeedii waxay ahayd qabow. adi hadda 6 maalmood 5 maalmood oo kuleelkan jira, laakiin xalay roob yara soo daatay, farxad anaga ilmo yariis camal, laakiin shagax markuu soo dhaay horubka damay. marka insha Allah biidnaa karim roob aan ku qawsan Ilaahay hana siiyo oo Ramadaanka aan ku mudno. waan idin salaamaya meel walba aad joogtiin, waxaan idin leeyahay Ramadaan kariim oo kullu caam antum bikhayr. asxaabtii sharafta leh, qisada intaas ay ku eg tahay, fadlan haday cusub tahay subscribe isaar, gacantiida way soo orday oo subscribe markii la sheego way soo orday, waxay rabtaa like cala duul in hore ka sheegto. marka like na isaar, subscribe isaar. inta fiidiyoga mid la mid ku kulmayno waxay kaga tagayaa saliga nabigeena suuban calayhi afdalu salaatu wasalaam. allahumma salli wa sallim wa baarak ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mac salaam asxaabta sharafta leh.